kala saar lahu kala soo bixun u fikiro aday taladii ku tegto sidaad moodaysa mahe warhooy Soomaaliya Soomaali baale waxaan ma aragtaa i arkay waxa xigi doonta i qariyay Allah halkaan galaayay nabadgelyo noqon doonto soola waxay noqon doontaa wadan nabadgelyo ma dhici doonto waxaan ahay taliyaha ciidanka qarsoon meeshina loogu talagalay waa joognaa saacadii loogu talagalayna waa joognaa dhulbahanta waxaan leeyahay waa inoo iyo halka aniga warwarkayga ugu weyn wuxuu ahaa inay musabixiin nuuxtaana ciidanka ay dabada haysteen oo ay lahaayeen dagaal ha qaadin ee jooga mar haddii ciidanka sii daayeen anigu saan wadkayga ugu kalsoonahay inaan dhimanayo ayaan ugu kalsoonahay ciidankaygii shaqadiina qabsada anuu hargeysaan idiinsii joogaa waan idiin xinaysanayaa geesiga ugu soo horeeya ee kasoo noqda dagaalka ee laasacaanood dukundaakum iyo in adiga ku taageersan kasoo dhiga anigu waxaan leeyahay anaa kuu diyaariyay kaale musabixiyo nuxtaana waxaa leeyahay guuleysta gobonimaad samayseen ciidankiini baad gacantuu sii diiseen aad bildan ku dheganaydeen ree dhagax ku dagaalamo wakaaste baroortiina yaan hadhow maqlin ani in badan baa igu soo lahaydeen waad barooranaysaa anoo nabad idinka baryaye idinkoo barooranaya ayaan ku dhacdeen goorma is qabsateen ninka Facebook galay ilaa warkaan ugu ma ogeyn inta dhubaanta iyo daaroodo waxa la iska soo sawirayaa Iraq waxa la soo sawirayaa dhakhtar ku yaala Iraq oo gantaal ku dhuftay waxna waa bilow war daaroodo walaalayaal ee gorta cawaanku mad Soomaaliyeed baati daaroodo anu waxaan idin aqaanaa cawaanka umada Soomaaliyeed inaad tihiin ama duurjoogta umada Soomaaliyeed because cadeen baan ku dhiibay magaalooyinka ugu waaweyn ee shidan Soomaalida waxa leh qabiilada kale idinku maxaad leedin walaas aanooda la isku haysto oo la iska barakicinayo ya garowe ya kismaayada de al-shabaabtii wax joogan badii ragul wargeysay leeyiin burcay leeyiin ergaabay leeyiin muqdisho leeyiin jabuuti bay leeyiin waxa asmada doodmo Soomaaliyeed marka la yeereen miibaati horta waayeen ka horteen miibaati horta ma ogtiin iminka hadii aad sawir soo qaado sawirkaas meel kale uu ku jiro ama Google baad daga soo qaado sawirkaas la soo bandhigo ataad Allah ciidankana waa ciidankii door ku cararay oo jabay oo gawadhii daga cararay sawirka ma ogtay inaad mobilkaaga dawadiin karto Google baad weydiin kartaa saasaad mobilkaaga iska fogaan kartaa kamarada deeshaysa kamarada ma deegaamaga shid waa face off isaga dogo saaray isaga ku oranaya sawirkan waxa laga qaaday hebel cida waxa laga xilga timeka mobilkaaga baad ku siinayba duwan ku jiro mobilkaaga ayaaba aadi ku siinayaba oo kooraya waxan waa xilliga timeka weey marka anakuna waa soo dhigtaan walidin beeninaya waliba rag idin beeninaya waxa idin beeninaya waa habli saaqa idin beeninaya waa maanta oo dhan sawir baay doonaysan waa soo dhigaysan waka idoorkii cararay kurrida nacala abiinka kurrida ku cararay alla siiga badana waxaan ku lahayn naga taga 15 sanadood arday habli baan baray arrinkiyo hablow mobilkaaga marka ka wada baaxdid maartay halka maartay aadiga abaladu yeelan maartay abalku yeelo barta Google ya maartay Google ka yaala kamaradu aan ku sawirantahay ka ku dhufo sawir kasta sawir ku dhufo meel sawir ku yimid ku sheegay aniga waxaan ahay naag Ciisa hooyaday waa dhulbahante nugaal ku dhalat naag dhulbahanta oo daraawisha فضل نوصار سبسكرايب على خير قصي وحدك دقات فرحدي راهي قصي كسو بير حقصور تي في انا ور هذا صور اي ايان هذا بقينيا ور دقدقه ايا مقاله قرسودي oo la soo duubay ciidamada Soomaaliland oo galay magaalada Laascaanood qaybo badan gacanta ku dhigay waa war degdeg oo hadda soo dhacay
muuqaalada hordhaca ah ee la helaya ayaa ah inay gacanta ku hayaan qaybo badan oo magaalada ka mid ah sida muuqaalka aad ka aragto waa hoolkii weynaa ee waxa weeye maxamed jabuutaawi gurigiisa ahaa ee waxa weeyaan ay ku shirayaan garaadada magaalada isugu yimid waa muuqaalo dhab ah oo itus oo itaabsi ah muuqaalo dhab ah oo itus oo itaabsi ah waxaa la helay muuqaalo kale oo qarsoodi ah oo aan halkan lagu soo gudbin karin waxa weeyaan ciidamo ka yimi waxa weeyaan deegaanada Qardho iyo Boosaaso oo waxa weeye Puntland leedahay oo galabta soo galaya magaalada waxa muuqaalada aan halkan lagu soo baahin karin sababo shir awgeed balse waa itusoo itaabsi inay dowladda Puntland qayb ka qaadanayso dagaalka laascaanood ka socda oo ay iska rab taagtay dhulbahante maadaama oo dhulbahantaba uu xilal badan ka hayo deegaanadaas wararka ugu la yaabka badan ee degdega ah ee hadda soo dhacay ee sida tooska ah hadda u soo dhacay waxa weeyaan in la helay muuqaalo kale oo cadayntooda wata ciidamadii ugu badnaa ee Somaliland oo waxa weeyaan sii qulqulaya tukara ka dhaqaaqay waa gawaadhi gaashaama sidoo kale waxa la helay ciidamo kale oo gawaadhi Somaliland ku soo socda oo sida waxa weeyaan raq iyo ruuxba kuwaas oo waxa weeyaan lagu baahiyay baraha bulshada iyo gawaadhida waxa weeyaan hambarasyada ah sidoo kale waxa la helay muuqaalo dhab ah in waxa weeyaan laascaanood gudaheeda ay galeen ciidamada Somaliland iyagoo gacanta ku dhigay qaybo fara badan oo ka mid ah waxa la helay muuqaalo kale oo dhab ah is urursi ciidamo oo waxa weeyaan dhammaanba ka socda Somaliland ciidamadii ugu badnaa hubkii ugu badnaa oo waxa weeye sii qulqulaya sii guuraya sidoo kale waxa la helay muuqaalo dhab ah oo cadayntooda wata in ay laascaanood berri noqon doonto meel lagu kala heeday nina meel lagu kala sareeyay micnaha ama Somaliland baa sareyn doonto berri iga qor ereyga ama waxa sareyn doona dhulbahanta sababtan kuu sheegaya nin walba maanta wuxuu keensaday wixii uu hubhayay ee awoodiisa ahaa waxaa la helay muuqaalo kale oo dhab ah ciidamada darwiishka oo waxa weeye muuqaalo qarsoon ay soo duubeen madaafiicda darandooriga u dhacda kuwaas oo lagu qiyaasay 300 oo xabadood oo goor dhaweyd laascaanood la keenay balse la garan maayo halka laga keenay waliba waxay ka soo galeen dhinaca buuxood waa gawaadhi baa siday andhameelayaal ayaa hubkan siday sidaas waxa la oran karaa inay Puntland hoos ka sii ay sheekadu tahay hoos ka sii weeyaan Puntland sheekadeedu balse waxa la heli doonaa berri shawaabo kala duwan dagaalka ayaa socda maalinkii saddexaad igu soo orad maaha meeshu rag baa ku baxay rag haliyeeyaha baa noloshooda u huray dagaalkan cid kastaba ha noqoto balse maanta dhimashadu way badneed labada dhinacba waa lagu kala hoogay maanta dhamac baa la iscabsiyay maanta shalay iyo daraad waxba ma yahayn balse maanta dhamacda ayaa la iscabsiyay dhanaanka ayaa si toos ah la isugu dhiibay maanta sidoo kale runtii macawisley aan la garanay cidda ay yihiin oo dhinaca waxa weeyaan koonfur galbeed ka yimi ee waxa weeyaan laascaanood soo galay iyaguna goor dhaweyd oo galabta ah labada dhinacba waxay soo diyaarsadeen berri toole horta Somaliland baa ka ilaabay gawaadhida gaashaaman ee 48 dhuumoodlayaasha ah ayaa iyaguna hoganaya buuraha dambe ee sayidka iyo waliba tukaraq oo dhan wali waxa sii qulqulaya gawaadhida boorama ka baxay halka u dambaysa sayla ayaa raba inay halkaa ka galaan waxa weeye laascaanood berri waxba la soo haray maayo balse waxaasiba waxa weeye dhiig walaalaheen labada dhinacba dad walaalaheena baa ku baxay ciday doonaan baa noqdaan dadkana waa dad walaala ah balse mid baa iman doonto oo ah waxaa soo haliyay baxay labada dhinacba berri ka maalin waa la heshiin doonaa waxaana lagu heshiin doonaa xabaalo wadareedyo lagu aasay dad haliyeeye dhakadooda
taas waxay ka dhigan tahay waxa weeyaan in maanta dib ay colaadii ugu xumayd ka socoto deegaanada Sool iyo